سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح qoys kastoo dhisan hadday dhimrintiiyo naxariista isticmaalaan way jirayaan haddii islaantu ay kakanaato qaylo badnaato ama odaygu askari uu noqdo marka uu soo galo awaamirun bixiyo yararku derbiyada kala galaan qofba meel ku dhuunto sidii kornayl guriga soo galay hadday saa noqoto nebigu wuxuu leeyahay idaa araada allahu biahli beytin khayra adkhala calayhim alrifqa baa nebigu yidhi guri haddii ilaahay khayr la doono dabacsaniduu geliyaabaa ayuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam guri haddii khayr lala doono walidaalik baa gurigii nebiga nebi mogaa wuxuu leeyahay caaisha ay waan aqaanaa markaad ii cadhaysantay bal hadda u fiirso waa caasho cadhootay oo guriga joogta laakiin maxay samaynaysaa calaamadduu nebigu ku garanaya inay cadhoonaysa ma inay timaa iska riftaaba mise waa inay qaylaysa mise waa inay buuqda maya nebigu wuxuu yidhi markaad cadhaysantay waan gartaa waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiyo maxaad ku garanaysaa wuxuu nebigu ku yidhi markaad faraxsan tahayna waxaad tidhahdaa laa warabbu muxamed markaad cadhootana waxaad tidhaahdaa laa warabbu ibraahiim haddaadaanad cadhadu ku haynna arrinku sidaa maaha baad tidhahdaa nebi maxamed rabbigii baan ku dhaartaye laakiin markaad cadhaysantahay waxaad tidhaahdaa buu nebigu yidhi arrinku sidaa ma aha nebi ibraahim rabbigii baan ku dhaartaye dabeetana nebigu waxay ku tidhi ilaahay rasuulkiisiyo wax kale ma sameeyo markaa cadhoodo dee magacaagu manafka ka daayaabay leedahay nebi ibraahim baan soo qaadaa halkii aan adiga kaaga soo qaadi lahaa yacnii dadka cadhadoodii ku soo koobay inay dhaarteedun beddesho halkay warabbu moxamed ka lahayd ay tidhaahdo maxay warabbu ibraahim inay tidhaahdo waxaan leenahay markaa guri kasta oo ku dhisan caynkan aabba kasta iyo hooye kasta oo carruur haya macallin kasta iyo macallimad kastoo wax dhigta waxaan leenahay qofka aad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur intaanu caqliga furin haddaad is tidhahdaa awaamir iyo xoog tuko qasab saan yeel inta uu yaryey dayla waa la tumayaayo uu iska aqbali laakiin maalintuu dhowr iyo toban jir gaadho innaga intaa qaylada buu ku odhanaya maalintuu dhowr iyo toban gaadho tarbiyada xooggaahi ma socoto markaa meel ma gaadhayso laakiin haddaad qalbigiisa furto qofka kan oo ilmahan xanaan aad u muujiso waxaa laga yaabaa inaad aragto dhaqanka ilmo markuu tago kindergaadharkana faraxsan waayo islaanta kindergaadharka joogtaa subaxii markaad u geyso intay u fadhiisataa bay mucaanaqaysaa ka yar intay jilbaha dhulka u dhigto marka yare adigu aad wadday ayay mucaanaqaysaa hadhow markay kugu soo daraysana waa soo mucaanaqaysaa klan bay soo siisaa hadhowna adiguna adigoo gacanta hayoo jiidayaada war hore u soo soco leh ayaad dhigtaa waad ka dhaqaaqdaa hadhowna mee xagguu jiraa war soo bax gaadhiga fuul habsan baannu nahaye gaadhigaad kula carartaa idan markuu xaggeeda u sii socdana waa inuu faraxsanaadaa adiga xaggaaga markuu u soo socdana rabshad baa ku soo socotee waa inuu cadhaysnaadaa dee iyadu qalbigiisay furtay saa daraaddeed macallimaddu waxay sheegtay kasta uu rumaysanyay run buu haystaa macallimaddii baa saa tidhu ku odhanaya waayo macallimaddu qalbigiisay furatay kadib caqligiisu waxbuu aqbalaya adiguna adigoo aan qalbiga furin baad waxaad rabtaa inaad caqliga uu kuu furmo suurtagalla maaha ilma haddaad rabto inaad rabbayso qalbigiisa fur dhunko soo dhowee eray fiican ku dheh ammaan markaasaa qalbigiisu kuu furmaya xataa hadduu qalad sameeyey qofku ma wada xuma qayb wanaagsan buu leeyahy wixii wanaagsanee uu sameeyey ku ammaan hooyo wiil fiican baad tahay saan baad samaysay kan baad samaysay waxan baad samaysay waxaasoo dhan baad samaysay aad baad u fiican tahay ammaantaa yar qalbigiisay furaysaa laakiin hooye waxaad ku dartaa inaad homeworkana ka shaqayso isagoo isu arkaya qof wax qabtay inuu yahay ayuu wuxuu isleeyahy intan yare ka dhimanna islaanta aad ammaanteeda wada heshide inta yarna ku dar laakiin haddaad soo gasho adigoo leh maanta oo dhan shaqaad ku maqnayd ama markaad soo gasho waad leedahay yaa ka shaqaynin homeworkiisii waa dagaal arrinkaagu
fadhfadhiistoo shaqeeya homeworka ka shaqeeya markaasay ku odhanaya aaba tv-gaanu yaro dhegaysanaynaaya war kac tv leyne orod ka shaqee in yar markuu gaadho uu kaa tegi idan waxaynu leenahay rifqigaynu sheegaynaa nebi maxamed wuxuu leeyahy dabacsani wax laguma daro ilaa iyo way qurxisaa qalqallafsanaan wax laguma daro ilaa iyo way fool xumaysaa sidaa awgeed ninkii ku yidhi 10 carruuraa dhalo weligay mid ma dhunkanin nebi maxamed wuxuu ku yidhi haddii qalbigaaga ilaahay naxariista ka siibay maxaan anugu kuu samaynaya waxay leenahay qof kasta oo dhallinyaro ah oo waalid leh ilaahay wuxuu ku yidhi waqfid lahumaa janaaxa dulli min alraxma waqul rabbi irxamhumaa kamaa rabbayaani sagiira u dabacsanow waxay leenahay qof kastoo daaciyo oo diin sheegaya fircoon baa la yidhi nebi muuse markaad u tagto waxaad ku tidhaahdaa qawlan layina war dabacsan warka dabacsani xaqa ha sheegin maaha fircoon muxuu ku yidhi nebi muuse markuu u tegey yaa idin rabbiya baa la yidhi rabbuna aladii acطaa kula shayin khalqahu uma hadaa buu yidhi laqad calimta maa anzala haaulaa'i ilaa xaqiiquu sheegayay nebi muuse kama gabannin xaqiiqada laakiin isagoo qowlalada ka xumbaynaya ma sheegin oo dagaalansan ee wuxuu sheegay isagoo raba qofkani inuu xaqa aqbalo idan ma aha macnuhu markayn leenahay rifqi noqo diinta ka tag maaha xaqa ha sheegin maaha ilmaha ha sixin maaha khata'a ha joojinin maaha waxaasoo dhan sidoodaa loo saxaya laakiin qaabka loo saxayo qaabka weedha loo odhanayo ayaa waxay noqonayaan qaab fudud waayo nebi maxamed baa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddaad qallafsanaan lahayd oo aad qalbi adkaan lahayd dadku waa kaa yaaci lahaa hadda ma aha nebi maxamed miyaanu xaq sheegaynin may xaq buu sheegayey waxyi baanu waday kuwa wuxuu sheegayay ee aayaddani ku soo degtayna waa goob dagaal bay ka carareen qaar ka midii qaarna waa iska fadhfadhiisteen qaarna ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay adduunya doon ahaayeen minkum man yuriidu dunya wa minkum man yuriidu alaakhira saxaabay wada ahaayeen laakiin markan gef bay galeen qaybo badanoo ka midii saxaabadii uxud ka carartay qaar baa firdhadkii madiine ku galay gef baa dhacay atawalli yowma zaxaf baa dhacay waxaasoo mashaakiloo dhacay ayaa ilaahay wuxuu ku leeyahay haddana naxariista xagga alle ka timi ee qalbigaaga gashay baad ugu dabacsanaatay dadka ee haddaad adadkaan lahayd dadku wuu kaa tegi lahaa kuwaas baa ilaahay wuxuu ku leeyahy facfu canhum wastakfir lahum washaawirhum fi lamr kuwaa dembigooda dhaaf oo ilaahay dembi dhaaf u weydii arrinta iyo taladana wax ka sii baa ilaahay leeyahy maalin bay gafeenoo dib loola hadli maayo nimankaas ay iska tagaan ma jirto maalin way gafeen laakiin waa laga toobad keenaa gafka saa awgeed warka aan rabaa wuxuu yahay marka xaqa waynu sheegaynaa ilaahay kitaabkiisana la qarin maayo sunnada nebigana waa la sheegayaa madaxdaa loo sheegayaa maamulladaa loo sheegayaa a'immadaa loo sheegayaa caamadaa loo sheegayaa cid walbaa loo sheegayaa laakiin usluub buu xaqu u baahan yahiyo dhimurin walidaalik nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo tilmaamayaa dhimurintu in khayr dhammaantii uu ku jiro soomaalidu nacasnimay u haysataa socaynkaa maaha adayg iyo qallafsanida baynu ragannimo u naqaannaa marka reerkiinna la soo qaado inaad qowlalada ka xumbayso oo had wax radidid marka meel la ysugu yimaado inaad hadalka dadka ku gubtid xataa haddaad rabto inaad wax sheegto hadal wada mudmudisa aad uga dan leeday kaasi hadalkii uu yidhina jawaabta ka yaro bixiyo ku mud kanna ku mud dee haddaad warma qaybinayso dad wadi kari maysid asalku wuxuu yahay xaqa inaad sheegto laakiin usluub latifan oo fiican inaad u sheegto dadka aad tarbiyaynayso ha weynaadaan ha yaraadaan dadka aad koobcinaysa rabbaynayso inaad isku daydo inaad quluubtooda haratid markaasaad caqligooda helaysaa qofkii aanad qalbigiisa helin ee cawaatiftiisa aanay gacantaada soo geli karin cuquushooduna gacantaada ma soo gelayso siiba marka la joogo qadaaya tarbiya siiba marka la joogo carruurta iyo barbaarinteeda waa inaynu rafqinimo kula dhaqannaa rafqi inaynu kula dhaqannaana macnaheedu ma aha inaynu xadhigga u sii dayno waxay doonaan ay sameeyaan waa saxaynaa laakiin waxaynu saxaynaa iyadoo aynu qalbigooda hanannay
iyadoo aynu kalgacal u muujinnay iyadoo aynu u muujinnay inaynu danaynayno qofka kan sidaa awgeed wakhtigaas ka kooban oo wakhtigii lay siiyey waxaan filayaa 2-3 daqiiqa ka hadhay waxaan idiin sheegayna waa nakhtiin waa axaadiistii iyo aayaadkii culammadu idinku akhriday wax cusub idinma sheegin laakiin midha aan rabo un inaan idiin sheegaa waxa weeyaan cuquushu ma furanto haddii aanay qalbiyadu furmin cuquushu ma furanto qofkaad qalbigiisa furi karto ayuunbaad caqligiisana furi kartaa qofkaasaad qancin kartaa qofkaasaad wax u sheegi kartaa qofkaasaad waxaad u sheegtay u arkayaa inaad u naseexaysay oo u danaysay oo isaga tiisa aad ka warramaysay hadday taasi suurtoobi weydo tarbiyadaadu waa faashil hoggaamintaaduna waa faashil siyaasiyiinta waddannadii muslimiinta ka jira mashkiladoo dhan waxay isku dayaan inay ku xallilaan alamnu uma alamnu uma alamnu uma alamn booliis iyo qaanuun iyo askari in lagu xallilo taasina waxba ma samayso way sii adkaysaa dadku way sii caburaan marunbay sida bambaanaa qarxaan markay qarxaanna wixii soomaaliya ka dhaco kaluma dhaca marka waxaan ku soo koobayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam qof dabacsan buu ahaa isagoo xaq wadana xaqii wuxuu u gudbiyey qaab dabacsan وصلى اللهم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين